ninkaasoo kale waa kaasaa yacni mintidnimo waay waa saxan tahay dagaalka loogama haro sideedaba dhaawac halgan sidiisaba dhaawac loogama hakado waxaan halkaan u imaanay in la diriro waay khawaarij in lala dagaalamo waay dagaal la socda haddii la yidhi dadka deegaankan dadka ulama sinna dadka deegaankan joogo shabeellada dhexe dagaal aad u adagaa ka socdo oo waa lagu soo duulay cadowgaa ku soo duulay khawaarijaa ku soo duushay dad diin been sheeganaya ku soo duulay marka dadka deegaankan degan iyo soomaalida kale dagaalka uma sinna waxaa mas-uuliyadda ugu badan dadkaanay saaran tahay marka saas darteed waxaa la rabaa in la muujiyo geesinimo dheeraad ah iyo in la muujiyo raganimo dheeri ah in halkaas laga muujiyaa la rabaa khawaarij waa taqaanaanoo taliyahana waa ka sheekeeyo waqti badanaa la soo dirirteenoo ilaa ay halkaasi cali axmed hadhihin kawsar hadhihin deegaanadan kale saas u teedsan ayaa dad badan kula dirireen madax wargala ma lehe madax mudac galay leeyihiin madaxooda mudacaa gala mogiye madaxooda war ma galo qofuuna warankaaga kaa reebin warkaaga wax ka mataraa la yidhaahdaa khawaarij haddiisan xabadaadu aysan jirkiisa taabanin meeluu kaaga waabanayo iyo meeluu kaaga haraya ma jirto dagaalka aan ku jirno dagaal jihaada oo diin ah waay diin inay tahay sida ayaga u sheeganayeen uma sheegaynay annaga waxaan u haysanaa diinta xujaan ugu haysanaa culammadii soomaaliyeed markii la fadhiisiyey waxay dhaheen dadkaas khawaarij waa khawaarijtuna diintaa sheegtay qofka la dagaalana waa mujaahid qofkii dilaanna waa shahiid qofka iyaga dilana waa janna u galaa waxaan rabnaa marka hadda in laysku wada xirmo dowladdiina aad garab istaagtaan dowladdu waxay awooddo way bixi doontaa oo ama murxo ah ama taageero kale ah guddiyadiinna iyo dadka horjoogayaasha u ah tiimka ayaana taliska iyo dadka annaga guddiga socdo ayaan kala hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan kusoo xirxiro qof kasta way dhimane qof raagaya ma jiro dhimashaduna waxay isdheertaa waxaa waaye qofna si sharaf leh u dhintaa qofna si gunimaha u dhintaa asoo hoos fiirihaya ayaa la dilaa waxaan rabnaa bacdamaa uusan muuqeena uun raagayn magaceena inuu raagaan rabnaa oo dadku ay isku duubnaadaan si sharaf leh oo gobonnimo leh oo gunnimada ka fog in loo diriro oo laysaga celiyo cadowga maalkaagu khatar ku yahay naftaadu khatar ku yahay diintaadu khatar ku yahay caqligu khatar ku yahay nasabkaagu khatar ku yahay sharaftaadu khatar ku yahay wax kastoo diintu ilaalisay ayuu khatar ku yahay waxaan rabnaa dadka deegaanka ah inay isku duubnaadaan oo intaan haddii laysku keenay oo dadkoodii iyo dadkii la diriri lahay annaga hadda halkan waxaan u joognaa waa ogtihiin amba dhegta waa naga maqlayseen 2 bilood ku dhawaad halkaasaan joognaa meelaan u soconno male garabkiinaan ka diriraynaa garabkiinaan nahay idinka dhihi mayno gala dagaalka waa idinka aamusaynaa dhihi mayno waa idinla safanna nin hadda oo soo hitaayaa jiro sideedaba sida ninkaasoo kale waa kaasaa wuxuu yidhi ninkii haddii luqunta la jiro lugaha meersha yacni mintidnimo waay waa saxan tahay dagaalka loogama haro sideedaba dhaawac halgan sidiisaba dhaawac loogama hakado aadaa u mahadsantihiin